guutaale ka tirsan doodsan doodan labaad oo noqonaysa tii labaad ee aan qabano isla sanadka gudihiisa waxa ay ku saabsan tahay wada shaqaynta labada heer ee dowladda federaalka oo loola jeedo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo mucaaradku kaalin intee la eg ayay ka qaadan kartaa ama ku caawin kartaa in waddanka ay ka dhacdo doorasho 2021 horaanteeda doorasho xasiloon nabad ah hufan waxaa marti noo ah oo halkan haddii ilaahay idmo aragtidooda iyo ogaalkooda ka hadli doona maama duniya carshaan ama duniya maxamed cali oo wax ka badan 30 sano ilaa 20 sano ku jirtay bulshada rayidka hadda ka tirsan hoggaanka iida muddo dheer ka shaqeynaysay isu jiijiidka iyo nabadeynta waddanka waxaa ku xiga xildhibaan maxamed amiin xasan cabdullaahi oo ku jiray baarlamaankii 8aad iyo kii 9aad wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinkii dhacay 2016 waa lawyer oo dhinaca qaanuunka ah waxaa kale oo haddii ilaahay idmo isna ka qaybgelaya dooda oo halkan fadhiya xildhibaan dr cilmi nuur waa dhaqaalayahan waa macallin jaamacadeed hadda wuxuu ku jiraa aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka dhinaca axsaabtana malaha lama qariyo wuxuu ku jiraa oo ka tirsan yahay xisbiga nabadda iyo horumarka UPD soo dhawaada dhammaantiin duniyaan raba inaan ku bilaabo halkan waxaa fadhiya dad dhigta jaamacadaha macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha dad ganacsiga ku jira oo dhalinyaro intooda badan u badan kusoo dhawow bal marka hore wada shaqaynta maama duniya labadan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo mucaaradku wada shaqaynteedu kaalin intee la eg ayay ka qaadan kartaa in waddanka ay ka dhacdo doorasho nabad ah xasiloon oo hufan bismillaahi raxmaani raxiim aad ayaan ugu faraxsanahay doodsan inaan ka qayb galo barnaamijkan maanta inta ka baxaayo waxaan sidoo kaleeto u mahadcelinayaa guutaale oo ah ninka daadihinayo ahna muddo dheer ku soo jiray saxaafadda wax badanna og iyo marka loo kaco waxa kale oo aan mahad u celinayo dhalinyaradan isa soo xilqaamay marka waxaa waaye sanadahan waa sanadihii dhalinyarada aadaan ugu faraxsannahay awal hore waxaa la dhihi jiray culimada haweenka iyo ragga yaa badan marka culimada lagu daro hadda waa ka baxnay haweenka iyo ragga yaa badan marka dhalinyarada lagu daray taaganta sababta waa isla wada qatannahay dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo waddanka go-aan masiirkiisa meelaha laga xukumo waa ka wada qatannahay marka isku ujeedaan nahay marka sidaas awgeed galabta aada iyo aada ugu faraxsanahay markaa hore u galo barnaamijka maadaama waqtigu uu nagu yaryahay waxa waaye horta haddii la kala socdo oo sida aan saasaaka hadda aragna ay ku socoto waxa waaye wax badan doorashadan lagama rajeynayo mana imaanayso laakiin markay wada shaqeeyaan dowladda maamul goboleedka iyo mucaaradka doorashada waxay noqonaysaa noor dadka ay bartaan inclusive ay noqdaan hawsha oo loo wada sinaado waxa waaye muxuu ahaa horumarka ama wanaag laga filanayona wuu sii badanaya waxaan ognahay hadda ilaa iyo hadda in dowladdu annaga aan qayb ka ahayn bulshada rayidka in ay dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo muqdisho broseskii socday wada hadalkii in uu wax wanaaga iyo rajabaalkii inuu yaroo wax wanaagna ka dhasheen marka mar kasta oo intii laga sii dhaweeyo waxaa arkaysaa wanaaggii ama rajadii way soo noqonaysaa marka hadda waxaad arkaysaa in meel ay bannaan tahay dowladdii waxaa arkaysaa marka waxyaabaha hadda loo baahanya in la saxo waxaa waaye dadka horta naftirkooda annaga naftirkeeda inaan ogaano dowladdu inay shaqaalaha iyagii tahay in ognahay inuu shaqeey inaan ka aamusno ma aha waxa waaye saddexda qayb waa politician waa siyaasiyiin laakiin hadda
siyaasadda waxaa fadhiyo dowladda hadda joogta ayadaas maamulaysa marka ayada waxaa laga rabaa inay isu keento macaaradkii iyo maamul goboleedkii iyo kulli la tashi inay samayso iyo bulshadii rayid ay goobjoog ka tahay marka waxa waaye intaasaan kusoo gobo su-aalaha waa imaan doonaan waa lasii gudageli karaa ditoorka iyo wiilkayga iyo looyarka kulli ayaan u hambeynayaa doodana waa gudageli doona insha allah xildhibaan maxamed 2016 waxaa ku jirtay guddigii xalinta khilaafaadka ee xilligaas shaqaynayay maanta mucaaradka iyo meesha kala taagan waa ognahay mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wada shaqayntoodu awood intee la eg ay ku hordhin kartaa in labada heer dowladda ay doorashadii dhacdo si nabadan u dhacdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد من الجوتالة إلى دمان داديها برامج كدوتسن صحفي ترعين محمد نور ماما دنيور وسلام دماغ شغل جلاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كيدي waanka dooda horta aada u fiican yahay marka hore waa hambali idin leeyahay waa dood waqtigeeda kusoo aaday oo waqtiga la taagan yahay haddaysan jirin marka wada shaqeyn dhex martay saddexda qaybood ee hadda aad ka dhawaajisay ififaaro doorasho ma dhici kartaba inay wada shaqeeyaan oo midnimo iyo wada hadal iyo isu tanaasul uu jiro waxay qayb ka tahay transitionka inuu dhaco isbedel waddanka inuu galo وطبعا ذلك أفضل سنة مر دور شوه قبسوني جري يحبقن كي بوليتيكال إنتوها أوضح كي جري إنه يحسيد الإنسان نقضان وحيوك تهتون 16 دور شوه كي دعايي وحيكو قبسومان وذا هذا يسو تنازل سيارة وكرنتاع دور قبل وشقين الهايين إيو دور دي ثلاث وقت هايي وذا وقت جوكتي معارض كان والله سنة waxaa wanaagsan marka qaabka 2016 ay ahayd waddanka siyaasadiisu ilaa hadda waa tabtiyo kala waay mucaarad waa jiraa mar kasta oo doorasho ay jirto dowlad iyo system uu jiraa mar kasta la rabo doorasho iyo waddan inuu sii jiro la rabo marka inay wada shaqeyn dhex martay mucaaradkii waqtigaa jiray iyo maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka ah waxay suuro gelisay 2016 doorasho dadban in la aado waddankii doorasho dadban ay qabsanto 2017 muxuu ahayd xukuumad iyo nidaam dowlad cusub waddanka ay ka timaado hadda aan joogno sida maamul ay sheegtay rajada muuqato iyo fifaalaha hadda muuqdo waa heshiis ku yimid in la dhageystay codkii mucaaradka in la dhageystay wada shaqeyn ay timid dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka dabcan waa isugoo goosan doonaa tanaasul waqti badan ay kala go-u jiray dowladda dhexe إمام قبلته هل سنة كل واحد يسمونه هذا لكن تنازل كيمو جي مدحينها جمهورية فراك سوماليا وعزومي وحكى على سويمي ده سمرات بان يتروي تري لسوتجي وحكي مد حنان قناع سنان يشكك إنه كبح دورش إنه قبسون كرتين كلا مركا the same point أو 2016 هيد كما دوانو مد هذا الجو مركا وان أتكينا وانا كباقينا مرة بعدين المهم تهاي wada shaqeyn iyo isu tanaasul iska warqab in la helo si waddanka hore loogu mariyo aada maasan xildhibaan dr cilmi 2020 iyo 2016 meelay iska egyihiin jira inagoo imaan doona aragtidiina iyo baaqidiina soo saarteen UBD ahaan marka la fiiriyo aragtidaada adigu waad joogtay 8aad iyo 9aad iyo 10aad malaha labadii baaqaan ugu dambeysay maxaad leedahay wada shaqeynta saddexdan hay-adood mucaaradka oo aad u badanaya hadda xisbiyo badan ilaa 100 ayaa diiwaan gashan qaar ayaa active kuwaan active ahayn wada shaqeynta labada heer ee dowladda iyo mucaaradka maxay ku soo kordhin kartaa in doorasho ay ka dhacdo waddanka nabad ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه marka hore waan salaamayaa saaxiibkay maxamed amiin duniyo iyo muxuu ahaayey guutaale waa mahadsan tahay bahda ina maqlaysa iyo bahda TV-ga soo qaban qaabisay runtii barnaamijkan soo abaabushin aad baan u salaamaya dhammaantood iyo ummadda Soomaaliyeedba
runtii muxuu ahaayey waa su-aal muhiima weeye sida ay muxuu ahaa banalka xubnaha banalku ka dhawaajiyeen marka doorasho la gelayo runtii waxa weeye xilliyada u baahan dadku inay heshiis ku yihiin dariiqa doorashay maraya iyo processka doorashay maraya maxaa yeelay natiijada la doonaya waxaanu rabnaa inaynu xukuumad ka soo baxdo xukuumaddaasoo markaasi legitimacy leh oo kalsoonida shacabkeeda haysata oo lala shaqeeyo oo muxuu ahaayey aan cabasho iyo dhibi ka iman sideedana markaa dalku ruqaansiga uu galayo siyaasadeed iyo xilligaa waxa weeyaan xilliyada ugu nugul yahay ee ama qalalaasoo dhici kara wey asalkana marka tartan la gelayo tartanka marka lagu socdo iyadoo tartanka heshiis lagu yahay baa la galaa laakiin tartan marka horeba la isku khilaafsan yahay galitaankiisa iyo qaabka muxuu ahaay loo dejiyey waxaan leeyahay waxay dhalanaysaa natiijada ka iman kartaana way adkaan kartaa sidaa darteed doorashada xilliga la galayo ama moogtay qaabka doorasho iyo hanaanka doorasho waxaa moogtahay lagama maarmaan ah in heshiis laga yahay cidda heshiiska ka noqonaysa waxa weeye waa stakeholderska bannaan cidda ay khusaysee danaynaysa waxaan isleeyahay xukuumadda iyo maamulka moogtahay ama ha noqdo labadiisa heer ama heer federaal ama heer dowlad goboleed waxa weeyaan waa executive-kii waa fulintii wey marka fulintii oo dhinaca iyo intii danaynaysee damac lahayd oo dhinac kale ah ha noqoto ama mucaarad ku sheeg ama tartamayaal ku sheeg ama moogtahay muxuu ahaay magacay dooniba ha qaataane waxay noqonaysaa ciddii danaynaysee tartanka inay ka qayb gasho oo dhinaca iyo maamulkii joogay xilligaa isaga laftiisu danaynayo oo executive-kii oo dhan ah labadaasi buu horta moogtay geemka ciyaartu ka dhaxaysa marka taasna waxay u baahan tahay in loo helo referee muxuu ahaay cid xakam ah oo dhexdhexaadisa iyo hanaan lagu kalsoon yahay marka haddii taa la helo waxaa la isran karaa hididiilo fiican baa moogtay moogtay ama rajo wanaagsan baa yaa muxuu ahaay yaa la filan karaa laakiin haddii processka la isku khilaafsan yahay runtii halkaa weeye meesha walwalka ay moogtahay uu ka imanayo marka waxaan leeyahay weli doorashadii lama gelin waa xilli la sixi karo hanaanka doorashooyin waa xilli la isku iman karo laga wada hadli karo sidii horeba looga hadlay iyadoon la islahayn waa la isku imanayaa iyadoo ay ahayd un executive-kiisa labada heer oo dowlad goboleed iyo federaalka ay ahayd haddana xilli adag iyadoo lagu jiray waa la wada fadhiistay waxbaa ka soo baxay marka waxaan isleeyahay haddii la isku yimaado inta danaynaysoo dhan ay moogtahay isku yimaadaan ay ka wada tashadaan wixii ay cabashaana waa la toosin karaa hanaan la isku moogtay waafaqsan yahay oo doorashana waa la samayn karaa saan isleeyahay taasi waxay u tahay danta dalka iyo qaranka iyo midnimadiisa iyo inay moogtahay xukuumad legitimacy leh inay moogtahay lagu kalsoonaan karaa ay meeshaasi ay ka soo baxdo dunya saddexdan marka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo mucaaradka iyo bulshada rayidka waa afarta sector ama qaybood ee danaynaya doorasho maxaa looga baahan yahay dowladda federaalka intaa adiga og tahay 1 2 3 maxaa la rabaa inay buuxiso dowladda dhexe ee maanta jirta waajibkeeda ah bismillahi raxmaan raxiim horta waxa waaye dowladda waxa looga baahan yahay awalan inay gol fidiso waxa socdo processka socdo ma aha inay kaligeed iska maamulto oo ayada anaa gadhay anaana gadistay lama rabo waxaa la rabaa dowladda inay u wacdo siday ugu wacdeen maamul goboleedka ee gorgortanka oo la gashay inay macaaradka way taqaanaa axsaabta naftirkooda waa kala tayo badan yihiin way og tahay marka nin weyn wadkii waa gartaa marka waxaa la rabaa macaaradka inay u yeerto annagu waxa waaye waxaan nahay goobjoogayaal u fiirso processka marka laga soo bilaabo carte ilaa iyo dowladihii soo dhismaayay bulshada rayidka waxay ahayd annaga doorkeena waxa waa korjoogto isu soo jijiid qofkii gardaran inaan dhahno si gaara annagoon meedii ka qeelin inaan dhahno niyo waa ku gardaran tahay sidaa hadda kusoo sameynay dhuusamareeb 1 iyo 2 waxaad ogtihiin 5 maamul naftirkooda inay heshiis ahayd jijiid isu jijiid kadib waatay ogolaadeen markay wada hadleen aan wada hadalna waa aan wada heshiino dowladda ayadaa la rabaa maanta
ayadaa ku fadhido kursigii ayadaa baawarkaysato waxaa laga rabaa inay keligeed iska socoto ma aha hadda waa la heshiisay heshiiska naftirkiisa ayaa waxaa la rabaa timing uu ahaa waqtiguu lahaa waqtiga muxuu dib ugu dhacay waa inay dadka la socodsiisa heshiiska waa in uu hirgalaa dadkii ay wada galeen heshiiska yaa u dhexdhexaadinaya bulshadii rayidka waa kusoo dareen taytal ahaan laakiin annagay ahayd dadkii inay fiirino ay ahayd oo la socono waxaa la rabaa istaraatiiji inay jirto waxaa la rabaa annaga waxaan sugaynay markay iyaga heshiiyeen labada stateka federaalka iyo stateska kale markay heshiiyeen waxaan sugaynay in macaaradka ay u wacaan in wax laysla meel dhigo in la sameeyo istaraatiijiyadii timingkii la sameeyo in muxuu ahaa annagana aan goobjoog ka ahaano oo wixii lagu heshiiyo aan controlno annaga waxa waaye bulshada inaan usoo sheegno waxa waaye access meelo ay u lahayn ayaan u leenahay annaga waxayna waa wacyigelin isu soo jijiid waaye siyaasiyiinta waa ognahay siyaasiyiinta berrito markii doorashadan dhammaato kuwa isherdinaya inay isku dhinac maraayaan kuwa isku dhinacaha waaye aragaan u nahay 30kii sano ugu dambeeyay ama 20kii sano ee dowlad soo dhisida siyaasi ma kala foga kursiga intuu ku tartamaya keliyo isu jiraan wax berrito ayagaa israacaya walaalkay cilmi iyo wiilkayga siyaasiyiin iyo hadda kuwaan buurka saaran kulligood haddee maanta waxaan ognahay dad dhihi jiray amxaar ma arki karo waxaa isoo dhaweyni markii afar dastuur ma arki karo kuma dhaaranayo 4 sac subaxnimo dastuurkii ku dhaartay 6 sacna meeshii uu diidanaa Ethiopia ka degay marka siyaasi waa naqaanaa naga bulshada marka waxaan leeyahay dadka hadda buurka saaran keligood waxa ma laha waa inay u wacaan buurka xolo jeeda madaxtooyada jeeda buurka marka aan leeyahay marka waxa waa hadduu bulshada rayidka yahay markuu buurka karo kuma yaqaan waa ka bax salaam calaykum maxamed amiin maxaa looga baahan yahay maamada waxay sheegtay dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay istiraatiijiyada la timaado mucaaradka iyo dowlad goboleedyada iyo timingka wax ku dhacaya inay iyadu hayso maamusho dadkana wax la wadaagto dowlad goboleedyada maxaa looga baahan yahay waa 5 ayaga laftooda wax isuguma darsanaa waa maxay roog kaalinteedu waa maxay dowlad goboleedyada hortu waxay xubin ka yihiin dowladda federaalka ah kama siyaasad duwana waqti dastuura jiro waddanka uu leeyahay dastuurka waddanka ka jiran awoodo yaa jiro uu siinaya dowlad goboleedka awoodana wuxuu siinaya federaalka dowrka laga rabo dowlad goboleedku waxaa waaye in ay waafaqsan yihiin ka dhinac shaqeynayaan taageersan yihiin kuna hadaf yihiin dowladda federaalka ah dastuurka xataa wuxuu sheegayaa dasaatiirta ay leeyihiin dowlad goboleedyada waa inuusan ka hor imaanin dastuurka qaranka siyaasadaha guud ee qaranka midnimadiisa iyo sugidda amniga qaranka horumarinta dhaqaalaha iyo suuq xor ah waddanka in loo sameeyo iyo kaabayaasha bulshada oo dhan wixii horumarin karo dhan waa inay isku aragti kala noqdaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa kuu soo haray midda siyaasadda innaga hadda dowlad goboleedyadana geelka iyo dheelayaan waxaa waaye waa political associations qaabkoodii waaye waxay rabaan inay jaangooyaan siyaasaddii qaranka inay jaangooyaan ay rabaan suuragalna ma aha qawaaciddeediina nooma diyaarsano iyaga naftooda waxay baahan yihin dowlad goboleed in la qaan gaarsiiyo oo hadda systemka ay uun mid yihiin dowladda dhexe ma caddo qodob waxaa jiray sheegaayo in baarlamaanka uu soo saari doono sharci caddeynaya awoodaha iyo xuduudaha ay kala yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ma dhicin marka looma guuleysanin hadeer iyagaa marka madaxdii waxay dheelayaan game ah inay awood wax ka helaan xildhibaanadii deegaan doorashadooda ah dowlad goboleedyadii inay iyagu liiskii iyo qalankii qaataan ay u diyaar garoobaya inay soo xulaan ayna ku barashar garaynayaan dowladdii dhexe culeyska iyo tirada iyo nambarka ee dowlad goboleedba ay leedahay taas aanan u adeegeynin maslaxada guud ee qaranka hadda iyo dan marka iyaga waxaa looga baahan yahay in ay qeyb ka noqdaan waddankan maslaxadiisa iyo danta dalka meel ku jirto danta dalka iyo maslaxada qaranka meesha ay ku jirtaa inay qeyb ka noqdaan ay gacan ka geystaan fududeynteedii labo waxaa looga baahan yahay inay gacan ku siiyaan dowladda dhexe
wax kasta oo maslaxa oo wanaag ah oo dadka horumar gaarsiin karo aysan bedelkeeda caqabad noqonin xukuumad kasta oo jirta oo lasoo maray maamul goboleedyada waxay ku ahaayeen caqabad 2017 maamulkan yimid ilaa 2017-18 waxay dhacaysay inay gacan kusoo dhigto ama la fariisato ay soo gacan geliso wada isfahmaan maamul goboleedyadii oo ay ka fakadeen oo qaraab iyo hawli waxba iska jira la ogaa waxaa looga baahan yahay marka aan usoo noqdo in ay heshiis dhab ah oo isfaham oo wada shaqayn ah oo qolowga xadka ay leedahay ay si muxuu ahay wanaagsan u gudatahay inay la yeelato dowladda dhexe kana shaqeeyaan in la fuliyo wixii lagu heshiiyey hadda heshiisaa la gaaray oo ah guddiyadii doorashooyinka in la magacaabo waxaan ognahay maamulada qaar inay aada ula daaheen qaar xataa weli aysan soo gudbinin marka laga reebo xubno uu galayo heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ah laakiin qaarkood aysan weli soo magacaabin guddiyadii heer dowlad goboleed aana weli la ogeyn waxay ka mid tahay marka dib u dhaca waxyaabaha keeni karo oo doorashadii iyo qaabkii wixii inay hoos dib u sii dhacaan waxaa kaloo looga baahan yahay inaysan dowlad goboleedyadoosan matelin mucaaradka dowladday ka mid yihiin dowladda federaalka ka mid yihiin laakiin doorka mucaaradka inay qaataan ma ah mucaaradka iyo dowlad goboleed waa kala baxsan yihiin sharciga oo siinaya mucaaradka in muxuu ahay axzaab iyo nidaam siyaasi ay u maraan mucaaradnimadoodu laakiin madaxweyne dowlad goboleed inuu matalo heer mucaaradnimo sax ma ah isaga waxaa laga rabaa dastuurkan qaranka uu ku dhex jira awoodaha uu leeyahay iyo dowlad goboleedkiisu ay leedahay dastuurka dhexdiisa inuu ku ciyaaro oo dowladda waxyaabaha laga rabaahi uu ka dhiilgarayo dowladdu mashaariic dhaqaale keenaysa inuu dowlad goboleedkiisi geeyo waxbarashadii caafimaadkii iyo horumarintii dhaqaalaha boolis federaal jiro ama amnigan dhaho qayb uu kaleeyahay inuu qayb ka qaato laakiin inuu ciyaaro game of political partiski sax uma arka markaas inay ka waantoobaana qaba aniga dood adag waaye waana kugu imaan haddii la idmo xildhibaan dr cilmi mucaarad dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa ilaa xad way taabteen wax looga baahan yahay mucaaradka maxaa looga baahan yahay waajibkoodu waa horta waxaanu ka hadlaynaa waxaan ku egnahay doorashooyinka mar hadday doorasho tahayna oo laleeyahay doorasho uu dalku gelayaa nin kastoo hanlihiina waa moogtay waa tartami karaa ay tahay keliya waxaa loo baahan yahay in hanaankii doorashadu noqdo mid qof walba qancin kara waa sida muxuu ahaayey dee laba tiim oo kubad ciyaaraya wey marka labada tiimba waxaa loo baahan yahay inay ku qanacsan yihiin hanaanka doorashadaas muxuu dee kubaddaasi ama ciyaarta loo maamulay garoonkii refriigii ruliskii waxaasoo dhan inay cad yihiin marka labadiiba iyagoo moogtahay rajeynaya inay guul ka gaadhaan oo saaxiib ah oo moogtahay wada qoslaya ayay galayaan moogtahay ciyaartii kadibna markii dee muxuu ahaa la kala guulaysto waxaa lagu kala guulaystay waa rules of gamekii wey nin walba wuxuu la yimid wey marka horta doorashadu inay noocaa noqoto wey waxaa laga rabaa mucaaradku inay haddii lasoo bandhigo dee muxuu ahaayey hanaan transparent ah oo lagu qanci karo oo markaasi ummadda dhan ka dhexeeyo cidna gaar maxaa yeelay nidaamka doorasho sideedaba waanuuna cidna u heelinayn cidna ka heelinayn taasunbaa muhiima nidaamka iyo hanaanka doorasho ee la sameeya processka la sameynaya iyo qawaaniinta loo dejinaya sideedaba waxaa aasaas u ah inaanu qofna gaar u lahayn oo dadkoo dhan ay u dhexayso oo ciyaar markaasi muxuu ahaayey feer ah oo markaa muxuu ahaayey siman loo siman yahay la wada dheelo taasunba horta mugta aasaasku yahay kadibna muxuu ahaay lagu kalsoonaado natiijadii maxaa yeelay haddii natiijada laysku qabsado dalku halis buu ku jira waa khatarteedan leen dhammaanteen waxaanu bixinaynaa markaa cost of that muxuu ahaay conflictiga dhibta soo gaadhaysa baynu muxuu ahaay la tacaali karnaa muddo dheer si taa looga baaqsado waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaay garabka tartamayaashii ama mucaaradkii inay ilaaliyaan oo muxuu ahaay nidaam wanaagsan oo transparent ah haddii lasoo bandhigay inay ogolaadaan waxna contribution ka geystaan weliba sidii loo toosin lahaa ama loo hagaajin lahaa wax feero baaha doorashadani maanta keliya maaha doorashadu waa seasonal soo noqnoqonaya afartii sanaba mar soo noqonayo marba group iyo marba muxuu ahaayey in cusub iyo generation cusub ama tartamayaal cusub keenaysa marka waxaa loo baahanyay marka inaynu yeelano hanaan laysla wada ogol yahay in la abuuraa loo baahanya marka abuurinta jawigaasi
waxaa loo baahan yahay inay muxuu ahaayey mucaaradkuna ka qayb qaataan xukuumadduna ay la timaado wax ummadda dhan qancin kara dhinacyadoo dhan qancin kara oona nina gaaru lahayne dadku ay u siman yihiin nin walbana nasiibkiisa u qaato marka halkaa uu ka qaato shacabkiisa iyo ummaddiisa hadda guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa la magacaabay 25 guddiga doorashooyinka ah iyo 21 guddiga xalinta khilaafaadka ah waa 46 qof dowlad goboleedada waxaa ka imaanaya qiyaas 40 qof oo kale oo heer dowlad goboleed ah markaas dad 100 kor u dhaafaya ay noqon doonaan marka la isu geeyo mucaaradka qaar ka mid ah waxay leeyihiin war guddigan la magacaabay waa shaqaalihii dowladda iyo haddii ay run tahay xubno ka mid ah hay-adda nabad sugidda waxaas markaad fiirisaan bulshareed ahaan ma arki kartaan warkaas dee dadka waxaa loo sheegayaa waa saasay sheegayaan mucaaradka dowladduna maysa beenayn mana rumaynin inay ka aamustaan laga yaaba idinku kaalintiina waa maxay ma sheegi kartaan waxaan ay mucaaradku sheegaya inay sax yihiin inaysa sax ahayn waxaa ka jira waxaa ka jiri بسم الله الرحمن الرحيم horta annaga bulshareed haddaan nahay baaqaan soo saarnay waxaana siday yihiin annaga dhinacna waxa waa waddankan waxaan rabnaa inaan ku noolaano shalayna waa ku nooleen hadda kadibna inaan kusii noolaanaan rabnaa ilmaheen ilmood annaga waxaa lagu ku maahmaahnaa konton beeri konton wendhima yacni 50 hadduu qofka dhaafo konton kale uma harsana aniga iyo wixii ila mida waa noocaas marka waxaan rabnaa dhalintaan maanta meeshaa far fadhido oo hadda adduunka u holleeya inaan uga tagno meel xun ma rabno waxaa waaye waa soo saarnay waana sheegnay 16kii waa kuu sheegay annaga bannaankaa ka ahayn haddaan bulshareydna wixii ka soo baxay iyo baarlamaankii ka dhashay iyo dowladdii ka dhalatayna waa la arkay hadday manfac leedahay iyo haddaysan lahayn waxaa la yidhi magaalo waa muul dadka joogana waa markhaati ayagaa markhaati ka maanta way ka sii liidataa saansaanka markaa aragno sababta ah shalayto waxay ahayd waa maamul goboleedka waa lagula dheganaa at least keligiis awood uma lahayn oo waxa waaye madal ha ku xirnaado ama statekaas markaas dhisna ha ku xirnaado dadka waa lala wadaagay markii qalad lagu arkay isaga naftirkiisa maamulkii 16kii heer waxay gaareen wasiiro ay kusoo daraan muxuu ahaa guddiyadii waa ka diidnay qaylo dhaanaa ka timid mucaaradkii waa ka qayliyeen oo hadda kuwa dowladda haysta mucaaradka dadda madaxda waa ka qayliyeen waxay dhan seefaar u noqonaysaa marka waxaa adiga shalay ka qayliyeysay maanta haddaad suubiso ama ogolow ama ha ogolaanin shaqaalahaaga xafiiska joogay inaad ka dhigto oo dhexdhexaad ay noqdaan waa habeenkii xalay ahaayoo tegay annaga waa ka hadalnay bulshareed haddana waa ka hadlaynaa mana ka joogsanayn waxaan u leeyahay hadalkaygan ku bilaabay dowladda ayadaa hadda awoodda haysato haddii waxa moorbod sbeeshinka uu bato hamiga siyaasadda dadka haayo hadda waxaan ku idhi maamul goboleedyadii way la heshiiyeen waxay doonaan ku heshiiyaan macaaradkana waa inay kusoo daraan hanka siyaasadda dadka uu ka haayo wax lagu heshiis lagu yahay iyo gudda heshiis lagu yahay iyo istiraatiijiya heshiis lagu yahay haddaan la helin waxa waaye hadda aad iyo fara ku taagtaag ay mareen laakiin wax kasii xun ayay gaari kartaa marka waxa waaye biyo intaynu kusoo gaarin ayaa la iska muusaa aamusnaanta dowladda naftirkeeda waa wax dhibaata waxaa la rabaa hal maalin hadduu dib u dhaco qorshihii la sameeyey inay mujtamac la wadaagto oo tiraahdo saasaa dhacday maamulhabalowni ka dhacday inay sheegto waa transparency waa inay waxa ahaadaan weliba xilli xasaasiyaa lagu jiraa caadiya lahaadaan xildhibaan maxaamiin 2016 guddiga xalinta khilaafaadka ku jirtay 4 sano kadibna waa joogtaa wixii aad xaliseen waagaas haddaad u xaliseen oo xasuusato iyo wax maanta taagan ma is og yihiin ma kala duwan yihiin rajada in 2016 waxaa madaxweynaha xilligaas wuxuu sheegay 3 qof inay ku dhintaan doorashadaas ayada guud ahaanteedba markaas 2010 iyo 2020 waxa taagan iyo 2016 wixii dhacay u joogtay ma is og yihiin mise kala duwan yihiin waa mahadsan tahay horta prediction waaye
ما قرأ كرنتك سو دعوة دولة توانيان دولة شوي هنا أنا قدران لكن دي قديري أصل قديري لما كل فتان حصل دعواتي صراحة نستيت غف كيس كلا قبتي يا هايل أنت دب علم قدي بيوسمي وليه دراسات دي ولا هو نقنا وهي هاي كوي توقف كوي توكي سديت كمل أنا لا شيء فسحلي سدح كرسي على النقل بس halbeeg marka waxaa jiray nooca dacwada qofku dacwoonayo kuraasa noocay tahay iyo cid dacwo karto waxaa laga dacwoonayay haddii hal group ama qofka hal murashax uu awood u helo inuu u xareysto ergada keligiis delegate monopoly waxa la ergada codan lahayd qofka inuu keligiis xareysto kale hadduu dhaco vote buying codkii in la gato oo qofka laaluushi lacag wax uu bixiyo hadii u baahan in aad loo cadeeyo u baahan saddex odayga dhaqanka ee boqosad iyo shanta ku jiraahay haddii uusan la tashanin samadoonadii ama nabadoonadii jifooyinka uu fursad u siiyo hal nin bas inuu ergada soo qabto kale ma dad ergadii xaq u lahaa inay kamid noqdaan qabaa'ilka qaarkood ama jifooyinka qaar laga tago kale isu dacwoodaan haddii cagajugleyn loo geysto qofka murashax oo kale ah inuu soo dacwoodo qofka murashaxan waxaa loo jeedaa qof qaatay warqadii murashaxnimada qof kasta iska raba boordhag sidiba ah qofka guddigii federaalka ama siid ama fiid u tegay ee lacagtii shubay ee dibibaaristii maray ee shuruudihii amnigii wixii buuxiyey warqadii shahaada la siiyey waayo borseeskaas qofkii maray yuu ahaa murashax dacwooyinka waa la galay qaar badan waa la xaliyey intaa marka waxay noqdeen hot cases oo ah dilaa ka dhacay afduubaa ka dhacay jirdil iyo dhibaatada la isu geystay murashaxiintii qaara la xiray ergadii qaara dhibaato loo geystay odayaashii dhaqanka dhibaato loo geystay wax muuqdoo la arki karay yay ahayd qofka dacwoonaya kiiska waxaa la sameynaya video yaa laga sameynaya wareysiga dacwada qaab furna loo galayay laakiin dee markii ugu dambeysay awood gaar ah oo ay lahaayeen oo maxkamad baa wixii ma soo xiri karaan wuxuu ahaa bas kursigan dib ha loogu tartamo in la dhihi karo laakiin madashu markay fariisatay final decision ayaga qaatay dowlad goboleedyada iyo madaxdii waqtiga way fasaxeen maxay sideed kursi maxay dariishadeen ama marasi waa la siyaasadeeyay waxay noqotay marka madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo laftooda kuraasi qaar ay rabaan dadka qaar aan dhahnay dib ha loogu celiyo doorashadoodii waxaa la rabaa madaxweynihii dowlad goboleedka inuu xildhibaan ahaaduu rabaa sidaa soo saaray facilitationkii iyo wixii saa u sameeyey wuxuu ogayaa marka haddii dib loogu noqdo inuusan qofka imaan karin marka waxay noqotay in laga ilaabo oo yidhaahdaan bas aan iska dhaafno kiiskii uu ka dhacay xabad ay ka dhacday ama dil laysugu geystay ama dhaawac uu ka yimid aan lagu tartamo kiis wuxuu ahaa hirshabeelle kiis wuxuu ahaa kismaayo jubbaland aan dhaho yuu ahaa kiisna galmudug saasuu ahaa bas inta kale waa oodaa laga qaada dadkii kale hadda marka somehow waa ka qaalisan tahay dacwadii horta awal $1,000 ahayd hadda waa 3,000 waaqan qof oo dacwo geysan doona qaabka uu kuma doonto waa iska adkaa doontaa isleeyahay ergadii waa ka qaalisan tahay ergadii lacagtii murashaxiinta wixii waa ka qaalisan yihiin marka participationkaas iyo qaabka oo ay noqon doonto prediction fiican kama bixin karo laakiin isleeyahay dad dacwada maalway doono dadka hadda loo xulayna ilaa xad dad Soomaaliyeed inay yihiin oo wax ka qaban doonaan ama qaarkood khibrad Dr. Cilmi markaad fiiriso waxaas oo waayagnimadiisa uu sheegayo oo ku saabsan in kuraastii muranka ka taagnaa qaar la fasaxay oo awoodda lagu fasaxay madashii xilligaa dhisnayd qaarkood laga yaabay sanadkan inaysan dacwoon doonin oo dacwadu ay ka bilaabanayso 3,000 lacagta iyo sidii waxaan marka la fiiriyo oo cabasho badan ka taagan tahay ma u malaynaysaa dad badan oo han siyaasadeed leh inay ka joogsan doonaan sabab la xiriirta qiimaha wax taagan yihiin iyo sidii marayaan horta waxaan isleeyahay waxna waxa weeye dee natiijo wey oo ma goortay soo baxda unbaa laga hadli karaa waxna waxa weeye habraaca iyo processka muxuu ahaaye hadda jira ee lagu gaarayo doorashada lagu gaarayo
waxaan isleeyahay waxa haddayna hor yaallay aanu ka hadlaynahay waa hanaankii oo bilow doorashayna gaarsiin lahaa natiijadu si kastay ku iman kartaayo waxaa laga yaabaa inay qaladaadka soo bixi doonaay waa tiro badnaan karaan marka lama saadaalin karo intee qalad baa soo baxaya laakiin waxa weeyaan hanaanka markaad aragto ayaa waxaad markaasi aad malaysan kartaa inay moogtay qaladaadku badan doonaan cabashadu badan doonto maxaa yeelay cabashadii hadday ka bilaabantay marka la iskombaar dhigo maxaa weeye xilliba xilliga ku beegan baa la barbar dhigaa haddaynu barbar dhigno xilligan isaga ah xilligii ku beegnaa ee doorashada loo diyaar garoobayay waxyaaba fara badan bay ku kala duwanaayeen mid wuxuu ahaa muxuu ahaayey guddigii wada tashiga ama loolan jiray leadership forum dowlad goboleedyada iyo muxuu ahaayey dowladda xukuumadda federaalku way wada socdeen oo dad is ogol oo go-aano midaysan gaadhayahay marka dhinacaas taladoodu way urursanayd tala urursan bay ku wadeen muxuu ahaayey sidii doorasho dalka loogu qaban lahaa midda labaadna waxa weeye hanaanka xilligaa la dejiyey wuxuu soo bilowday ilaa sanad iyo bar ka hor ayuu soo bilowday waa la isla yaqaanay qaabka doorashadu u dhacayso muxuu ahaayey nidaamkeeda waa la isla yaqaano wax lagu sii heshiiyey marka dhinaca processkana waa ka urursanaa dhinaca muxuu ahaayey hogaankii markaa ka talinayay dalkana dowlad goboleed iyo federaal ahaana waa ka urursanaa waxaan isleeyahay xilligan oo kale malaha waxay soo baxday markii guddiga doorashooyinka la sameeyey oo lagu daray qaybo badan oo fulinta ka mida lagu daray halkaasaa waxoogaa khatari dadka uga muuqatay waana laga bedelay dib u habeyn baa lagu sameeyey taasaa markaa xagga processka runtii xilligaa ka jirtay natiijooyinka iskuma qiimeyn karo because natiijadii weli maynaan gaadhin weli laakiin waxaan isleeyahay waan ku hambalyeynayaa bulshada rayidka inay muxuu ahaa noqdaan dee waxaa loo yaqaano whistle blower inay kasii digaan khataraha iman kara inay kasii digaan waxa weeyaan ka hortagga khataruhu waa muhiim ka hortagga khataraha siyaasadeedna waa arrimaha ugu sii muhiimsan bay ka mid tahay markii hanaanka la fiiriyo war waxaasaa ka dhalanaya khataraha ka imanaya in lays yidhaahdaay waa wax muhiima wey oo bulshada rayidkuna ay noqdaan markaa doorka qayladhaanta ee muxuu ka digitaanka iyagoo u danaynaya danta qaranka iyo ummadda u danaynaya ay muxuu ahaa sii fiiriyaan waa mid laga maarmaan marka waxaynu ka hadli karnaa horta sideedaba waa xilligaa processkaas lagu jiro wey waxaan isleeyahay hadda marka tan lagu eego dee dowlad goboleedyadii iyo xukuumaddii federaalkii maanta qaybo ka midii yaana odhan dhammaantoodii islama moogtahay talada islama haystaan oo waxa weeye waa in badan baa u dhexeeya oo muxuu ahaa ismariwaaya u dhexeeya gaabkaasi khataraha waxyaabaha khatarta keeni karay ka mid tahay xilliyaga doorashadana in arrimaha lagu kala bayro oo lagu kala aragti duwan maxaa yeele doorashadu waa wax national level dalkoo dhan wey dalkoo dhan mar hadday ka moogtay ka qabsoomaysana in dalkoo dhani isku si u wada arko oo inta siyaasiyiinta iyo inta maamul ku jirtaaba ay isku si u arkaan waa wax muhiim oo mawaaqifta laysu soo dhaweeyo marka khatarta halkaa ka iman doontaa inay meel khatar ka sii daran ina gaadhsiin kartaay waa wax iman kara loona baahan yahay in aada looga sii sheekaysto la yareeyo khatarta iman karta la yareeyo marka aan waxaan isleeyahay kuma qiimeyn karayno dee natiijo aan wali imanin natiijadii sanadkii hore kuma qiimeyn karo laakiin waxaan isleeyahay processka iyo qayladhaanta iyo muxuu ahaayey waraaqaha badan ay soo dirayaan murashaxiintii muxuu qaybaha kala duwan ay soo dirayaan bulshada rayidku ay sheegaysay ka dayrinayso waxyaabahaasoo dhani waa wax u baahan in la address gareeyo inuu xal loo helo dadweynaha waxaan rabaa inta qof oo rabta inay ka qayb galaan dooda ama su-aal weydiiyaan inaa fursad siisaan ay isdiyaariyaan la tiriyo 1 2 3 loo aqoonsado duniyaan rabaa inaan su-aal weydiiyo kadibna waxaan u wareejinaa dadweynaha haddii mucaaradkii iyo dowladdii iyo labadeedii heer ee dowladda ay halkaa taagan yihiin adinka bulsho rayid ahaan doorkiinu waa maxay بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت جاء جنوري وحصاب اللون جون أيام حصاب اللون والأولها جون مركو حواي واحد هرت أنا نفس الكيجة أيام واحد تريني ليبنو وين قصوا دعني لا قص قلادات كيسين وشكتوا مركب بوركا استجفني وحن سميني السوتك أنا زوم يوم السوتك ببوس الشرار ببوس سميني وحن سميني
7 qof oo national civil society ah si codkeena uu u midoobo region walbo 2 qof oo weliba lab iyo dhadig ah ayaan sameynay oo ah ururada ugu waaweyn oo markaas la aqoonsan yahay oo hadalkooda ama baaqooda la maqlay sida bunsoo kale sonsoo kale micnaha ururada ugu waaweyn ayaan ka soo qaadanay gobol kasto region kasto muqdishona waxaan ka qaadanay 5 urur weyn oo rag iyo haweenba leh 3 rag waxaa ka mid ah shir waxaa ka mid ah shaat waxaa ka mid ah anigan dumiye ah ka mid ah 5 qof oo micnaha waaye arag ah ee aan dibad ka imaanin last 20 years joogay dowladihii soo dhismay ilaa carta qayb ka ahaa dadkaas ayaa doornay micnaha markaan aragnay inay meel xun marayso oo dowladdiina iska fadhido macaaradkii uu hadlaayo maalin walba oo uu dhaaranayo wax doorasho iska wareysanayo aysan jirin ayaan annaga kacnay markaasaan samaysanay waa tii lagu guulaystay waxaa bilowday qeyla dhaanteeni dhuusamareeb waa ka qayb galnay kama harin annaga hay-adna maalgelisa ma laheen annagaa isku tashanay waxaan tagnay dhuusamareeb 1 2 waa fadhinay meeshaan fadhinay ilaa aan isu soo jiidno kuu sheegay even 5 maamul heshiis ma ahayn iyaga naftirkooda gruubbay kala ahay laakiin wadaas waxaa la sheegay waa joogaa umanayna dhuusamareeb waad joogtay isla waa joogo waxaa la yidhi qaarkiin dowladdii ku jireen oo xukuumaddii kala shaqaynayeen doorasho qof iyo cod ah maya annaga waxaad og tahay oo habeenkaas xasuusataa in muxuu ahaan aan la jirnay madaxweynaha iyo 5 maamul iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha gruubkiisi inay soo dhigeen beedka madaxtooyada ay soo dhigeen inaan annagu aqoonsanay 1 man 1 vote inaan actionka ah ka bixinay adduunkoo dhan inuu gaaray habeenkaas dadka ugu codka dheer inaan aniga ahaa oon iri muxuu ahaa annaga ma dhihin wax allaali wixii heshiis ugu yahay oo soo qaadatan ee soomaalina dan ugu jirtaan adkeynayna sheekadaas waxay ku timid waxay ahayd annaga fikirkoodaan fiirinay 5toodaan la fadhiisanay waxaan la fadhiisanay madaxweynaha waxaan la fadhiisanay fiiri 7dooda keliya ayaa shiraayay oo isu imaanayay dadka wasiirada la socday waxa meesha ka socda may ogeen sida anagu u ognahay haddaan bulshareedna waxaan yeelnay ayagaan kulminay waxaan raggaan maxaa ka damacsantiin waa habeenkii waa joogtay doodaa u qabanay marka annaga waxa waaye inaan caddayno wax walbo siday meesha wax ku socdaan qofkii gardaran iyo qofkii garle waxaan ogaanay marka arrimihii markaan soo xooraaninay macal madaxweynihii wuu nagu qaatay madaxweynaha ma ogoleen arrintiisa waxay ahayd 1 man 1 vote waxaan nidhi waa kuwa ogolan qofkii codka annagana waa waxa u soo halgamayay laakiin xilliga lagu jiro fiiri extensionna ma suurtoobayso sababtoo ah haddii 2018 wixii lagu heshiiyey ee ahaa 4.5 ha ku salaysnaadeen laakiin axzaab ahayd bay dhabo markii laiskugu tegay oo maamulada iyo kulli okay la ahaa aawo maxaa u meelmari weyse waxyaabaha xaqiiqahoon hadda inta ka sheegi karin ayaan kulligood ku wada hadalnay marka annaga waxa haddaan bulsho reydnahay sideedaba qofna kama jirno qofna lama jirno waxaa waaye waddankan ayaga naftirkooda waxa dan u ah oo mar walbaba aan ku wacyigelinaa qof kastoo u tegaynin aan u sheegaynay war haddii aad nin adiga maanta ku ogol keliya aad ku fikirto ama kugu tol ah ama kugu fikir ah waddankan hoguu ku dhacaya waa in aad aqbalaataa haddii kii aa ugu necabtahay macaaradka uu yahay nin waxgal ah ee muxuu ah waddankan wax u waxayna si kaloo isbeddel ku imaan kara ma aha hadba waxay ku xiran tahay ninka aad laga soo doorto deegaankaaga tayada fiiri annaga tiro ma fiirinayn hadda waxyaabaha aan ka hadalna waxaa ka mid ah bulshada rayidka oo ka midaysannahay 8 qof ay soo direen okay qaarkood ma ku jiraan micnaha markay waxay ka siman yihiin 4 qofay labana ay u soo direen muxuu ahaan doorashooyinka labana ay u soo direen khilaafaadka gabdhaha kuwa doorashooyinka kuma jiraan kii ugu roonaa hal khilaaf ku soo daray waxaasoo dhan annaga qoraal aan ku gudbinaa waa hadalnaa dooda hadda maanta inta aan ka doodaya xalayto shaatax wuxuu ka doodayay goobjoog annaga micnaha waxaa waxayna wacyigelin waaye
waxa waa bulshada inteeda aan codkooda meel gaarin inaan annaga waxa waa is soo qadinay haddii ay dhimasho ahaan lahayd iyo hadday nolol ahaan lahayd waxaa naga go-an waddankan inuu horumaro meesha uu joogo inuusan gadaal ugu noqon at least hor u socdo dadweynaha haye magacaaga iyo su-aashaada iyo qofka weydiinayso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان كسو قيبجلاش iyo Dodson iyo Iza magacaygu waa Cabditax Abdullaahi waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo xildhibaanka iyo sidoo kaleeto ninka kale ag fadhiya su-aashaas waxay tahay tusaale ahaan oo kaleeto afkaat maxamed amiin yes waa hal su-aal labadooda mid walba sida uu arkaa ugu jawaabo waxaa la xiriirtaa dhankan doorashooyinka tusaale ahaan oo kaleeto waddankeena hadda kama jirto maxkamad dastuuri ah oo haddii khilaafaad siyaasi ay dhacaan oo kale saarto oo leedahay hadda iyadoo doorashadii la gaarin guddiyada hadda lasoo saaro oo kaleeto khilaaf badan ay ka jiro hadday tahay dhanka mucaaradka iyo sidoo kaleeto musharaxiinta oo kaleeto in case ay dhacdo hadhow markii doorashada la gaaray haddii natiijada soo baxda laisku afahmi waayo yaa tusaale ahaan oo kaleeto xalka oo kaleeto intee loo raadin karaa meesha ugu habboon saasaa raba inaan weydiiyo qof kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتضى iyo panelisti dhammaantiin waxaan ku salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام waxaan rabaa inaa tar cilmi iyo magacaaga Cabdullaahi tar cilmi iyo tar xildhibaan hore talamiin waxaa weydiinaa hal su-aal adinkoo ka aba qaadaya doorashadii 2016 waxaa la yiraahdaa waxaa aad loo isticmaalay waxaa aad loo isticmaalay ciidanka intaan doorashada la gelin ka horna recognitionka la bixinayo waxaa ku jiray in ciidanka aysan dowladdu u isticmaalin soo xulista ergooyinka iyo lagana ilaaliyo goobaha codbixinta xildhibaanada lagu dooranayo sidaa darteed waxaan ogeyn in la bedelay taliyaasha ciidamada qaarkood haddana waxaa la yidhaahdaa oo rabood gareeyey in la isticmaalo ciidanka xulis ergooyinka iyo baarlamaanka marka lasoo dooran la isticmaalay marka maxaa u maleynaysaan in ciidanka la isticmaali doono oo awood badan maadaama la haddaba la sheegayo in guddiyaasha ay ku dhex jiraan ergooyinkana asaas lamida ay kusoo dhex galaan kadibna xildhibaanad badan oo maxaan ku ihahdaa ciidanka dartooda usoo baxay ay baarlamaanka federaalka kusoo biiri doonaan aad waa mahadsantihiin qof kale qof saddexaad aan ku darina waa laga jawaabaa haddana saddex kale ani magacaygu waa Zamzam Maxamed Cali waaye dhammaan ka qaybgalayaasha iyo doodkan waa salaama hal su-aal oo wataa waxaan weydiinaa maamul guniyo ururada bulshada rayidka dadaal badan ay sameeyaan bulshadana way wacyigeliyaan sidaa sheegtay laakiin marar qaar ma la dhihi karaa ururada bulshada rayidka waxay u xagliyaan dhinaca mucaaradka anigoo sababeynaya badanaa waxaad ka hadashiin waxyaabaha jiro oo marar qaar loo arki karo in mucaaradka dabcan aad garab ku siinaysaan tusaale dowladda waxyaaba badan ay qabataa waxyaaba badan ay horumar ka sameysaa maxaad usoo bandhigi laadihiin sidoo kale hadda dowladdan challengiga haysta waxaa ka mid ah COVID-19 aa dhacay oo saameyn xoog la yeeshay oo waxyaabo badan iyo qorshooyin badan dib u dhigay marka idinka dhanka wanaagsan maadaama fiirinaysaan soo ma ahayn in dowladdu waxyaaba ay ku wanaagsan tahay iyo waxyaaba horumarka ka sameynayso inaad garab dhigtaan dhaliilaha iyo waxyaaba aad soo jeedinaysaan waad mahadsan tahay waaya saddexdaana ka jawaabeynaa saddex kale aan ku xujinaynaa waxaan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan cilmi su-aasha uu idin weydiiyey oo ku saabsan mid ku saabsan tahay ciidanka midna maxkamadda dastuuriga oo waddan ka jira maanta waa run su-aasha cabdilfataax inaan maxkamad dastuurigii aanu jirin sidaa darteed yaa markaa kala xalinaya wixii khilaafaada asalka maxkamadda dastuurigii waxay xalisaa arrimaha dastuurka iyo shuruucda ayay fasirtaa dacwooyin ma qaado waxa weeyaan ikhtisaasaadka waxyaabaha gaarka u leedahay waxa weeye
markii arrimo dastuuriya la isku qabsado inay fasiraad ka bixiso oo iyadu markaa macnayso oo marka xagga uu sharcigiyo iyo muxuu ahaye ay xagga sharcigu u jiro ay markaa dadka u sheegto taas way horta macnaha moogtahay maxkamadda dastuuriga dowrka ay leedahay marka arrinta laga hadlayaa waxa weeye doorasho dadban wey doorasho dadban oo aan ku dhacaynin shuruucdii la dejiyey ee doorashooyinka loogu talagalay mar hadday arrimahaas tahayna totally doorashada dadbani dastuurka waa ka leexsan tahay wixii dastuurku qabay wixii shuruucda doorashooyinku qabtay wixii oo dhan wixii guddiga doorashooyinka loo aasaasay dhammaan wixii shuruucdii axsaabtu ku dhisnaayeen dhammaan way baalmarsantahay doorasho dadban wey marka ma samaysan inagu shuruuc hagaysa oo dastuurka waafaqsan oo doorasho dadbani ma jirto sidaa darteed waxaan isleeyahay halkaa xitaa hadday jirto mogta inaan looga dacwooba karin waxay u baahan tahay in guddi khilaafaada la sameeyey oo ku qotoma habraacii la dejiyey xilligaasi ee loogu talagalay in doorashada dadban lagu qabto marka waxay noqonaysaa final cidda go-aan kaga gaadhaysa ay doorashadaasi dadban inay noqoto guddiga doorashooyinka guddiga muxuu ahaayey khilaafaadka doorashooyinka taasaa marka ah muxuu ahaay wixii kaysas ka baxsan arrimaha doorashooyinkaana dacwadahayga dabcan maxkamadda sare iyo maxkamadaha marka ikhtisaaska gaarkaa u leh ayaa markaasi qaadi kara marka kulley su-aasha intaasaan taa muxuu cabdilfataax kaga jawaabaya arrinta cabdilaahi ka hadlay xagga ciidanka waa sax shuruucdeenoo dhan waxay dhigayaan inaanan ciidanka loo adeegsan arrimaha doorashooyinka ciidanku waxay ilaaliyaan nabadgelyada dadka ummadda soomaaliyeed oo dhanba ilaaliyaan inay markaa nabadgelyada doorashooyinka ilaaliyaan mooyaane inay iyagu doorashooyinka soo farageliyaan shaqo kuma laha marka ciidanku arrimahaasi waa ka caagan yihiin sideedaba maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed bay udhexaysaa marka haddii ay jirto inay muxuu ahaay ciidanku ay faragelin ku sameeyaan arrimahaasi waa wax muxuu ahaay runtii laga caban karo oo markaa xilligay dhacday iyo arrimahaas oo dhan ba la sameynayo taliyaal baa la bedelay dee hadda moogtahay kama hor dhici karno taliyaasha xilli walba waa la bedelaa laakiin dee inta danaynaysee doorashada gelaysaay muxuu ahaayey hanka lehee kursiga u ordaysaay dee dabcan waxay ka keeni karaan muxuu ahaay conseenkoogay ka keeni karaan maxaa xilliga doorashooyinka kusoo aadiyey in muxuu ahaayey taliyaasha la bedelo dabcan waa su-aal waa ka keeni karaa xaq baana u leeyihiin laakiin ma odhan karo muxuu ahaayey boqolkiiba boqol waxaa loo bedelay ujeedooyinkaasi oo dhaba runtii way adag tahay waxay u baahan tahay verification bay u baahan tahay laakiin waa arrin walaaceeda abuuri karta wey marka la eego daneeyaasha iyo muxuu ahaayey u ordaya xilka muxuu ahaayey madaxweynaha iyo xilalka muxuu ahaayey baarlamaankaba u ordayay waa odhan karaan xildhibaan xamuud bismi illahi raxiim waxaan isleeyahay su-aalihii ay soo jeediyeen cabdilfataax iyo cabdullaahi doctor cilmiga inta badan aada ugu jawaabay guddiga xaaladda khilaafaadka doorashooyinka dadban 2016 iyo midka hadda joogo habraaca loo qoray awoodda ayaa iska leh final decision ayaa iska leh go-aanka ah doorashada kursigaas cabashada laga keenay nambarkiisu saas ahaa dibaa loogu tartamaa iyo waa la fasaxay ayagaa iska leh cid kaloo awood iskale ma laha marka maxkamad baa marka maxkamad ma jirto maxkamad uma baahno maxkamad kaloo lala aadaana ma jirto habka lagu heshiiyaana sheegaayo habraacaas oo nooca ah wixii dee madani ma aha banal ma aha oo wixii maxkamad dastuur ma laha qolob dastuuriya la isku khilaafay ma aha maxkamad dastuur hadday jiri lahayd waddankana xasaab iyo wanaawagood ay jiri lahayd waa loo dacwo kari lahaa iyada waxay lahaan lahayd hanaanka lasoo maray sax miyaa masama ah natiijadeena ku dhawaaqaya maxkamad dastuuriga si dastuurka ugu qoran natiijada qofka madaxweynaha qaranka noqonaya iyo doorashadii soo baxday iyo waxyaabahaas oo kale lahaan lahayd hadda marka ma jirto guddiga xaaladda khilaafaadka wuxuu leeyahay qabashada cabashada dhageysiga muxuu ahay cabashada iyo fargaranteeda iyo ujawaabidda iyo is-horkeenida labada dhinac dacwad qaadisti kadib go-aankay soo saaraan oo ah kursigan waa lagu noqonaa iyo kursigan waa la fasaxay iyagaa iskale awooddaas iyagaa iskale midda kaleo ciidamada sida saxda ah
sharcigana uu qorayo waxaa waaye ciidamada inaysan ka qayb gelin political orientations ololaha siyaasadeed iyo campaigniska inay ka qayb galaan ma aha taageeridda qof murashax la taageera inay ka qayb galaan ma aha xubnaha xataa bootinka sameynayo inay noqdaan maaha iyaga waxaa laga rabaa eriyada doorashada ka dhacaysa amnigeeda iyo amniga guud ee markaas maamul kastoo la joogaahay iyo qaranka guud ahaan waajibaadkaysay leeyihiin marka haddii ciidamadu soo galaan arrimaha doorashooyinka waxaan violation waaye qas waaye marka taasna waa qof walbaa ka dacwo karo waa in laga borsas iyo laga sameeyo aan shib laga dhihin waayo marka waxaan dareemayaa inaysan awood badan jiri doonin oo ciidamada faragelin badan ay sameyn doonin aan qiyaaseen insha allah dunya su-aasha su-aasha daarigtiga kuwa kalena wax yaran ka taaba iyo ogolow okay doctor cilmi iyaaba si fiican u sheegay maxamed amiin horta ciidanka booliiska amniga ayagay ahayd laakiin waxaa ognahay 16kii ciidanka idan ajnabiga oo nala joogay inay saameyn ku lahaayeen oo dadka qaarkii ergadiisa lagu celinayay ilbaabka qofka kalena gudaha madaxtooyada loo jiifinayo habeenkaas ergadiisa horta ciidankaas baa isi faragelin hadda waa arkayseen maraykankoo naga awood badan inuu markii ugu horreysay inuu bedelada hadda bedelay ninka uu ciilka u qabay marka ciidanka horta meel kasto qofki markaas baawarka joogo wax walba waa isku dayayaa oo ku horumari karo tan kale khilaafaadka qodoba ka mid ah heshiiska meeshaan horta maxkamad dastuuri waxay imaan kartaa marka dastuur doorashadu ay dastuur ku salaysan tahay dastuur xaggaa la iska dhigo waa la tuuray waxa lagu dhaqmaayo waa heshiis ay wada galeen labada state hadda macaaridku ma jiro heshiis banaanku ka joogaa marka taa ha isku wareerinina guddiga khilaafaadka naftirkiisa awood saasa ma lahan ayagaa caddeeyey 17 qodob ay soo saareen dib u fiiriya qodob ka mid ah awood wuxuu u siinayaa wixii ay xallin waayaan siidka ama kursiga la isku qabsado inay xallinayaan 7 minute u sarreyso maanta waddanka awooddiisa haysata ilaaha awood leh horta taa ha isku daayinina si fiican waxaan jeclahay inaa u akrisaan markasta heshiis walba soo baxo midda kale su-aasha gabadha aadan u jeclahay gabdhaha inay su-aalaha galaan iyo dhiiranaanta waana soo dhaweynaya waaba kala ceynba gabdhow hadla marka dhinacaas markaan fiiriyo macaaradka maxaa ula jirtaa annagu waxaa dadkaa u maleeya inaan macaaradka la jirno laakiin annaga mar kasta cidda dulman oon isleenahay waa laga xag jiraa ayaanu la jirnaa annaga dhexdhexaad ma noqon karno ma ku milmi karno dowladda mar kasta waxaa dowladda haddaysan lahayn qaladaadka ay samayso dad la jawandi kareeyo ama sheego ama soo bandhigo ama inta aamusan ay dowlad u tahay servicekii hadday bixin weyso hadda waa aragtay waxbarashadii oo kale markay dhacday qaylada aan ka samaynay qaylo dhaantii aan ka samaynay haddaan nahay bulshada rayidka iban balladihii way cabsadeen inay soo bandhigaan waxyaabaha qaarkood laakiin annaga waa ka hadalnay marka waxa waaye annaga semberi waxaa la jirnaa qofkan marka ma dulmanaba kursigii uu ku fadhiyaa soo maa asaa atoorihii ah amiirkii ah marka amiirku wuxuu xalleeyo inaan jawdi garayno ayuunbaa annaga u joognaa marka ha u malaynin inaan macarad nahay annaga waxa waaye qaladkaaga qofka markuu kuu sheego waa saaxiibka waa ku toosinaa waa toosin laakiin haddaa uu qofkan uu wax saxada uu waayo wuu isla baxayaa wuxuu u malaynaa inuu saxsan yahay hadda guddiyadan la soo saaray haddaan annaga baaq ka soo saarin konseenkeena aanan muujinin oo dhahno waa sax oo sacabadugno bulsho rayd ma nihin markaas waa inaan barnaamij iskaga fadhiisanaa ama guruub ka tirsanaana marka saasaa dhexdhexaadka ayaan ka sifaayay inaan saas noqon xasan sayid okay waaya bismillah magacaygu waa xasan maxamed sayid waxaan ka tirsanahay bahda waxbarashada dooda maanta meeshaan aan isugu imaanay waxaa aadaan uga mahad celinaynaa waa dood waqtigeedii ku imaatay munaasabna ah wax badanna laga baran karo su-aasha meesha aan weydiinayo waa hadda cid gooniya kuma qusayso laakiin cid walbaa ka jawaabi karto oo u aragta inay jawaabteeda hayso
dowladnimada Soomaaliya waxay ku jirtaa soo kabasho processka soo kabashadaan ku jirnaa waxyaabo badan oo marka waxaa jira xilliga soo kabashada qof markuu jabo la kabaayo hadduu si xun u kabmo ay aad halisteedu u badan tahay tusaale ahaan waxaa ka mid ah waxyaabaha hadda aan dhaxalnay in lacag la isku doorto oo lacagtii ay noqoto haddii ergooyinkii la gelaayo haddaa xildhibaan noqon lahayd yacni rajada ceel kusii ridaayo sii dheeraynayo aadna u malayso in lala qabsaday oo noqoto wax normal ah oo dadkii ay la qabsadeen arrinta kale oo iyadana meesha taalla waxay tahay hadda doorka yacni mucaaradka dowlad goboleedyada iyo dowladda sidee uga wada shaqeyn karaan electionka markii la yidhaahdo yacni mucaaradka warkoodu waa cad yahay oo iyagu hadda wax ay gacan ku hayaan ma lahan dowladdii oo gacanta ku haysa awooddii iyo powerkii iyo resourcigii iyo wixii oo dhan oo ayadana doorashadii inay ka qayb gasho oo tartankii qayb uga jirta sidee lagu xaqiijin karaa inaysan masaalixdooda khaaska ah aysan u isticmaalin yaa korjoogtayn ku leh inaysan masaalixdooda khaaska ah u isticmaalin oo meeshan aan la dhihin yacni culama is haysato kale yacni mucaaradkii oo qaylinaya iyo dowladdii ayaa is haysta inaan la dhihin oo dadka publica naftirkoodu ee arrintan concern weyn ah meeshaas ka jira marka ayay tahay inay korjoogtayn ku sameeyaan si aysan maaragtay masaalixdooda khaaska ah u isticmaalin su-aasheeda intaasi koobanta magacaygu waa cabdikariim xasan waxaan qabaa 3 su-aalood waxaan rabaa inaan kala weydiiyo saddexda aqoon-yahan ee baanalka noo fadhiya su-aasha kood waxaan weydiinayaa maamul duniya waxay dhahday dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markay muqdisho isugu yimaadeen ee kogashii ama madashii micnaha soo gabagabeeyeen ma u yeernay dhahday mucaaradka maamul duniya ma soo ogaatay in mucaaradka micnaha gobol loo fidiyey la raadiyey iyaguna ka gaabsadeen ma soo hubisay su-aasha labaad waxaa weydiinayaa xildhibaan maxamed waxaa weydiinayaa wuxuu dhahay sharci waxaa jira la qoraayo laakiin aan la dhamaystirin oo lasoo gudbinin oo mataqaana ay sheeg kala xadaynayo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddii aysan la dhamaystirin ayna kala caddayn awoodaha ay kala leeyihiin maxaa diidayo ratigeeda inuu maro meeshuu maayo inuu kan yarna maro oo sheekada ay dhacdo tit for tit inay noqoto oo dhaho mid kasto his own interestigiis inuu raadsado mid kasta meesha isdanta ugu jirto inuu wax ka baadhiileen ma caddo awoodii isaga u lahaay ma kala caddo ileen su-aasha saddexaad waxaa weydiinayaa doctor cilmi wuxuu dhahay haddii mataqaanaa ay intaasi midoobi waayaan oo intay isku tagaan wada shaqeyn ay samey waayaan halis baa jirto doctor cilmi oo mataqaana hadda oo 100 maalin ka yar doorashadii ka dhiman tahay ayaa waxaa muuqda mucaarad cad iyo maxaa mataqaana ay sheeg inaan raali laga ahayn guddiyada doorashada loo soo magacaabo waxaa inta ka dhiman way yar tahay sawirna waa arkeyna mataqaana intay soo wada galeen mucaaradka ay dhahayaan raali kama nihin waana kasoo horjeednaa si cad ee social mediahan sidaas u dhex wareegaya marka ma jirtaa si kaloo loogu qancin karo any negotiation lala sameeyo ma jirtaa si macquul oo loogu qancin karo ilaan dowladda federaalku wax googolay fidinaysa uma jeedno mana kasoo muuqato mana kasoo naasacado marka idinkaa idinbeynaya aragtidiin insha allah waxaan dareemayaa macnaha inuu jiro warwar badan oo ku aadan qaabka hadda process oo ku socdaan warwarkaas oo ah yacni inaan marka la leeyahay doorashada soo socota waxay ka dhexaysaa yacni stakeholderska mucaaradka iyo dadka hadda dowladda ku jira macnaha laakiin waxaa muuqata in aysan muuqanin wax mas-uuliyad aysan meesha ka muuqanin oo ah yacni in dowladdu awood ugu badan ayadu ay qaadatay maadaama guddiyada hadda ay soo magacowday marka wax soo socda oo xildhibaano ah already inay diyaarsan yihiin macnaha oo qalin lagu sii qortay la rabo macnaha ii sheeg sida hadda maamul goboleedka ka dhacdo kale inay macnaha doorashada qaranka sidaas oo kale u dhacdo marka waxaa macnaha ii sheeg kulli aniga waxaan kusoo koobaa hal arrin oo ah mucaarad ahaan iyo bulshadayd ahaan in yacni dowladdan kulley in runta la sheego oo la dhawr dadkii Soomaalisaan lagu matali karo xaqiiqada laga hadlo yacni maadaama aan 10 kilometer magaalada Muqdisho laga bixi karo oo qof maamul sheegan uusan afgoona tagi karin balcadna uusan tagi karin
عن ريالتك الله قول لي هذا روحنا ما أنفعان ضد بالشدة مسؤول كعب أو يعني ضلك متلكة هنا ماشي كصوب حان كنت أنا وش يعني طيب وطلوا يا هذا سبب جدا ومعناه أن حقيقة لقيت قبل وعندين يعني كنت ده أنت سبب جدا طيب صفيو بسم الله مقعد صفيو واي كثير معه سلامة يا دنياها isbitaalo wada daadinaya waxaan rabaa dhammaan idinka wada jir ah ama idinka wada midaysan inaan laba su-aal weydiiyo su-aasha koowaad waxa ay ku saabsan tahay waddanka doorasho ayuu gelayaa 2021ka haddii waa la idmo doorashada hadda waxaa lasoo magacaabay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan guddigaas waxay u badan yihiin dhalinyaro qofka ugu weynna waxaa laga yaabaa inuusan 40 gaarin marka maamul duniya oo kale waxay ka dhawaajisay in dhalinyarada fursado badan ay halkaas uga bannaan yihiin fursado ani ahaan waxaa aaminsanaha fursada halkaas aysan ka bannaaneen oo sababtoo ah dhalinyaradii waxaa la leeyahay tusaale waxaa la leeyahay waxba ma qaban kartaan waa qolada Facebook ugu ololeysa dowladda Soomaaliya waa qolada madaxtooyada ka tirsan waa shaqaalihii rayidka dhalinyaradii fursadii la siiyay haddii inta mucaarad lagu noqdo maxaa lahahay odayaashii ay kasoo horjeestaan ay dhahaan dhalinyaradii waa dowladda iyada ayaa wadata oo beri ayay rabaan inay kusoo laabtaan ee wax isku dabamariyaan taas sidee dhalinyarada fursad ugu noqon kartaa haddii mucaaradka ay kasoo horjeedaan in dhalinyarada ay heer gaaraan odayaashana ay weli aysan quusanin ay weli ay rabaan inay iyagoo 80ka ku jiraan 70ka inay weli waddanka sii maamulaan iyadoo la heli karo maskax markaas shaqayn karta oo weli markaas caaboon waddanka hore usii wadi karta su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo dhammaantiin waxa ay tahay mucaaradka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha waddanka dhisa ani ahaan waxaa amisanaha mucaaradka inay waddanka dhisayaan sababta mucaaradka waxa uu ka mid yahay qofka kuu sheegaya qaladkaaga dowladda haddii ay wax ku qaldoonto qofka saxaya mucaaradka tusaale waddan yar oo ku yaala qaaradda Asia oo la dhahayo Lesotho waxaa ka jira dowlad 4 sano mucaaradka ayaa hogaamiye 4 sanana muxaafidka ayaa hogaamiye taas anaga ma gaari karno doorasho qof iyo codna ma gaarin weli oo waddankeena weli soo kabasho ayuu ku jiraa soo ma habooneen in mucaaradka iyaga laftirkooda fursad la siiyo guddiyadan la dhisaayo lagu soo daro dowlad goboleedyada ay kasoo galaan guddiyadooda iyagana si ay wax u dhisaan oo markaas wax lagu wada qanacsan yahay la dhiso waxaa arkaysaa in midka kale uu u jawaabayo waxaa laga yaabaa in qofkan wax kasoo horjeedo oo si uu qanacsaneen haddii ay dowladda soo saartay inuu dhaliil soo saarayo mucaaradka haddii ay maanta hadlaan ay dhahaanna dowladda saana ayay samaynaysaa dastuurka ayay garab maraysaa in dowladda ay tiraahdo mucaaradka waxbuu duminayaa marka sidee taas loogu gudbi karaa iyaga oo dowladdii mucaaradka dastuurka aan si waafaqa loo isticmaalayn oo welina qabyo u yahay labaatantiin واي waxaan ku bilaabaynaa su'aasha xasan waxaa ku xiga cabdikariin kale talow bixi isaga su'aal ma weydiinin safiya ku soo gabagabeynaa qaybtan runtii muxuu ahaayey su-aasha ugu horreysay muxuu ahaayey sayid dabcan shaki kuma jiro inuu dalku soo kabasho ku jiro la doonayana dowladnimadeenu inay dhisanto dowladnimaduna waa sida gurigoo kale wey ama sida mu-asasaad kasta oo dhici karta institution kasta oo jiri kara wey meel buu ka bilowdaa maalinba inbaa kusii kordhaysa shirkadaheenna waa weynay jiraay maalin qura ma samaysmine stageyo kala duwan bay soo mareen maalinba muxuu ahaayey meel bay soo gaadhay dhismayaasheennuna waa sidaa nolosha lafteeda caynkaay bani aadamka koritaankiisa ha noqoto wax kastaba waxaynu soo maraa stage iyo process waaynu soo maraa oo ku hana qaado dowlad xukuumad curdin oo dagaal ka soo kabanaysaan nahay waxaa loo baahan yahay marka inaynu si daacadnimo ay ku dheehan tahay oo u danayn dalka iyo qaranka iyo ummadaba ah tallaabo kastoon qaadaynaana ka fiirsi leedahay in runtii muxuu ahaay hore loogu qaado oo aqoon lagu saleeyo maanta adduunku moogtahay dee nidaamyo casri iyo wax walba moogtahay takhasus iyo aqoon uu ku salaysan yahay baan joognaa marka meelaha dibudhacayna u keenaya waxa weeye in waxyaaba dhaqan aan fiicnayn inuu dhaqan inoo noqdo
sida uu ka dhawaajiya in xildhibaanku lacag uu ku soo bixi karo ee lacag uu in la isku mugta bedeli karo madaxweynuhu saas oo kale moogta ay noqon karto markan macnaha dhaqanka noocaas oo kale sidee baan uga gaashaamanahay waa mid muhiim weyn taasina waa mid ahaan waxgaradkeenna iyo aqoonteenna iyo culimadeenna iyo bulshada rayidka iyo cid walba ay moogtahay ay ka muuqato oo ah ruuxani wax ina moogtahay anfacaya maaha mustaqbalka dheer in muxuu ahaayey laga muxuu ahaayey waantoobo yaa markaasi kor joogtaynaya arrintaas in muxuu ahaa dhaqankaasi laga hortago ama waxaasi ayna dhicin dabcan qof kasta oo mas-uula oo aqoon-yahana oo waxgarada oo u muuqato ayaa laga rabaa inuu runtii ama ka digo ama wax ka yidhaahdo ama muxuu ahaayey runtii doorkiisa ka qaato waxaa kaloo muhiima inta abaabulan ee ka mid tahay bulshada rayidku ay ugu horeyso oo muxuu ahaayey xisbiyadu ay markaasi ku jiraan xukuumadda lafteedii institutionskeedu inay sasaxaan iyaga lafteedu oo baarlamaan baa jira garsoor baa jira muxuu ahaayey xukuumadii fulin baa jirta waxaa loo sameeyey waa isasaxin wey inay sasaxaan markaasaa darteed in muxuu ahaayey shuruucda loo hogaansamoba ayaa keenaysa inaynu xagga dowlad wanaagga aan ku socono kolley dabcan dhaqankeena haddana waxaad moodaa wax badan inuu ka leexanayo laakiin taasi wax moogtahay raalli laga noqon karo oo mustaqbal dheer dowladnimadeena hagi kartay inayna noqonin in laga gudbo ay tahay waa idinku waafaqsana su-aasha kale ah muxuu ahaayey waxaan malaynayaa waxay ku socotay saaxiibkay maxamed amiin bay ku socotaan malaynayaa laakiin su-aasha aniga sida gaarka muxuu ahaayey la weydiiye waxay ahayd un 100 maalin wax ka yar baa runtii doorashadii ka hadhay waa cabdikariim baa iyadna weydiiyey marka sidee bay markaa suuragal u tahay in muxuu ahaayey muddada mucaarad iyo muxaafid iyo xukuumadintii laysku yimaado in muxuu ahaayey wax laga qaban karo waxaan isleeyahay conseenka ugu weyni meel buu abbaaray iyuu daaran yahay meesha uu daaran yahayna waxa weeye processka habraaca loo maray dhismaha guddiyada iyo xubnaha guddiyada ka mid noqonaya intaas wey marka haddii moogtay taa laga wada xaajoodo in la saxo processkaasi iyo in la saxo xubnaha guddiyada markaasi ka mida oo moogtay ka mid noqonaya oo sida heshiiskii uu dhigayo ah inaanayna moogtay ka mid noqon shaqaalaha iyo ciidamada iyo waxyaabahaas intaasoo dhan aanay ka mid noqon dad loo qaateena oo integritygooda hufnaantooda iyo aaminaadooda iyo waxgalkooda iyo aqoontooda iyo kartidoodaba la aamini karo in muxuu ahaayey runtii laga dhigo dhinacyadu waa related aaminaadda lafteedu laakiin dhinacyadu ay at least isu soo dhadhowaan karaan in muxuu ahaayey runtii laga dhigayo waa mid muhiima wey marka muxuu ahaa consent halkaan buu abbaaran yahay halkaana waxaan isleehay waa wax moogtahay fudud oo la sixi karo su-aasha muxuu ahaayey cabdikariim baa isna weydiiyey laba cabdikariim baa maan malaynaya su-aalaha kale lahaa waxaan isleeyahay xukuumadda dabcan iyadaa qaadatay inkastoo inta badan tala bixin iska ahayd common bay iska ahayd marka sidee baa markaa muxuu ahaayey loo xildhibaano oo moogtay matali kara ama lagu kalsoonaan karaa ay ku iman karaan oo runtii ama looga gudbi karaa xaaladda oo markaa uu tilmaamay dabcan waxaan isleeyahay marka hore waa sharci marka xigana waxa weeyaan in muxuu ahaayey ummaddu ay foojignaato oo markaasi ay moogtay ku fara adeegto processkii hanaanka wixii lagu heshiiyey aan usoo gudbo muxuu ahaayey su-aasha safiya oo runtii iyadna wax yar ka idhaahdo waxay tidhi dhallinyarada haddii guddiyada la magacaabo ay dhallinyaro yihiin cidda kasoo horjeedaana ay yihiin waa kuwan wadee odayaashii miya marka ay kasoo horjeedaan iyo intii waaweynada yihiin qadiyaddu ma aha da- maaha kuwana waa dhallinyaro kuwana waa waayeel maaha qadiyaddu waxa weeyaan dadka la xulay horta number 1 waa inay moogtay aqoonteedii iyo kartideedii iyo hufnaanteedii iyo dadnimadii leeyihiin taasi waa muhiim oo macaayiir iyo criteria lagu xulaa ay jiraan ama dhalinyaro ha ahaado ama qof weyn ha noqdee waa loo sameeyey talabaadna waxa weeye inaanu shaqaale ahayn inaanu ciidan ahayn inaanu moogtay waa shuruudo wey marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku shuruudaha loo dhigay buuxiyo ama dhalinyaraha ka yimaado
ama muxuu ahaayey inta kale ha ka yimaadee waa arrin loo wada siman yahay waxay ila muuqataa qadiyadda waa halkaa maaha ageka iyo da-da maaha muxuu ahaayey midda laga hadlay dabcan mucaaradnimadu waxaa la yidhi moogtay sida asalku yahay xadiis baa nabigu calayhi salaatu wasalaam lahaa almu'minu miraa'atu akhiih qofka mu'minkii qofka kale muraayad buu yahay muslimiintu iyo mu'miniintu iyagaa muraayad isku amarka muraayadaasina maxay tahay maxaa loogu metelay aada u bogtay u daraaseeyey muraayaddu saa tahay bay kuu sheegta haddaadan muraayad isku daawan isma aragtid ya inaad labisata iyo inaad muxuu ahaayey nadiif tahay iyo inaad qurux badan tahay iyo inaad isma aragtid marka muraayad waa inaad isku fiirisaa muraayaddu daacad bay ka tahay inay kuu sheegto sidaad u egta soo ma adiguna hadiidin in lagu sheego saad u eg tahay marka it's very simple mogta muraayadda u daa inay saafi ahaato oy nadiif ahaato si adigana ay war moogtay daacadoo dhaba kuugu sheegto muuqaalkaagoo sax si ay kuugu sheegto haddaad dooqayso uskagayso waxaa laga yaaba muuqaalkaaguna inuu fool xumaado soo ma muraayadda lafteeda ha cambaaraynin markaa dhooqaynteedu waa saas haddaad muraayaddii cambaarayso iyada lafteedu waxa weeyaan inaad uskagayso markaa muuqaal sax ay soo saari weyn marka awdaa muraayaddana saafinimadeeda si muuqaaguna uu sax u ahaa labadu saas isku yihi marka waa micno aada u fog weeye marka muxuu ahaayo xaqiiqada dhabta ay nooga turjumayo wey marka iyaga mucaaradku waxa weye waa inay wixii danta iyo dalka iyo siduu yahay xaggan ay khatari ka jiraan waa sida muxuu ahaa bulshada rayidka digniinaha hadda masalan hay-adda masiibooyinkii ka hortaga masiibooyinkaan samaysana marka waa khatarahay ka digaysaa sooma mucaaradkuna waa saas oo kale bani aadam baa nahay oo qaladaad badan baa kaa soo dhacaya halkaa waad ku qaldan tahay halkan waa sax in qaladaadkaaga lagu sheegaay waa arrin muhiima oo loo baahan yahay haddii kale toosnaan kari mayno marka meelahaasay tahay marka in laga muxuu ahay qaybgeliyahay waa muhiim laakiin xitaa haddii laga qaybgelin kari waayo in wax kalsoonida abuuri kara la keeno oo muxuu ahaayey laisku wada mogtahay raaci karo in oo la keenay waa muhiim wey waa mahadsanti xamiid sacuudi aada uu mahadsan yahay si fiican qurux badan u dhigay haddii aan ku hormariya yaa kor joogteynayo dadka hadda taladaha inaysan dhaqaalihii iyo awooddii aysan si qaldan u isticmaalin horta waxaa muhiim ah qof kasta inuu damiirkiisa xukumo rasuulka alay slam xadiidkiisa wuxuu ahaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddaadan xishoonaynin wax walbaa haysamee alla ku khalqay ee garaadka ku yeelay ee awooddaa ku siiyey haddaadan ka xishoonin oo weliba aad ogtahay beri inuu weydiinaayo qof bini aadan cabsidiisu marka allah subxana wataala ka xishoo waysid qof bini aadan korjoogtiisa kama xishoonaysid marka waxaa muhiim horta damiirka qofka inuu diro waxaa kaloo muhiim ah wadciga bulshada inuu saramarsan yahay dadka waxaa u malaysaa shacabkeena soomaaliyeed qeybo ka mid ayagaa ku dhiirageliya qofka inuu musuqmaasuq sameeyo waxaa laga yaaba in lagu yihahdo intaasoo sanaa xildhibaan ahayd intaasoo sanaad agaasime ahayd intaas agaasime waaxeed ahayd maxaa ka qabsatay public serviceka haysid yaa waxaa lagu tusaa inaad cadow ku noqotid oo xadid sababtoo qofna kuma filna mushaarka uu qaato noloshiisa maalinlaha ka badan ama ijaarka guriga iyo waxbarashada iskuulka caruurtiisa iyo caafimaadkooda yuuladaala dhacayaan marka waxaa muhiim ah qof kasta oo garaad ilaah subxaana watacaala uu siiyey inuu u fikiro danta dalka iyo dadka iyo awoodda maanta uu haysa usan beri haysa doonin weliba haddana awooddii aada isticmaashay si qaldan aa u isticmaashay waa lagu weydii doonaa xadiidkii kale wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati maalkii awooddii caqligii xikmaddii waa lagu weydiinaa qof markaasaa raba inuu isdiro annaga hadda waddankeena hay-ado badan oo ahayd inay jiraan ma dhisna weli waxaa ka mid a guddiga la dagaalka musuqmaasuqa haddeeraan unkaya waxay waqti hore la dhiso
waxay qayb ka noqon lahaayeen processkan hadda dowladnimada qayb weyn ka qaadan lahayn waxay ogaan lahaayeen qofka lacagta bixinaya kan qaadanaya waxaasoo dhan ogow diinteena asal u ah dastuurkan waxaa noogu qoran shareecada islaamka inay tahay manbaca asaaska ee laga qaadanayo wax walba oo waddankan nidaamkiisa ah islaamku ma ogola laaluushka ma ogola isku takrifalka awoodeed ma ogola wax kasta oo qof dhibaayo laa darara walaa diraara taas waa midaas oo qaybta hore ah yaa damaanad qaadaya yaa looga cabanaya yaa awoodda iskale qof walba iskale awooddaas oo soomaaliyeed inuu cabiro uu ka hadlo damiirkana uu u horeeyo su-aasha kale oo ahayd uu soo jeeday sayid waxaan sheegnay qodob konton iyo koowaad dastuurka wuxuu sheegayaa xiriirka iskaashi ee heerka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qodobka shanaad oo xeerkana wuxuu sheegayaa inuu jiri doono sharci baarlamaanka federaalka ansixiyey oo xeerinaya sameynta hay-ada iyo habraacyo fududeynaya wada falgelidda heerka xukuumadda sameynta hay-ada iyo habraacyo fududeynaya xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha heerarka xukuumadda intay u gudbin maxkamadda waa dowlad goboleedkii iyo dowladdii federaalka ahayd iyo dowlad goboleed dhexdooda xataa waxaa kaloo jira qodob kaloo sheegaya inuu jiraayo hay-ad gaar ah ama xafiiska la yiraahdo xafiiska isku xirka xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada ma dhisna marka sharcigaana baarlamaanka ma soo saarin hay-adihii muxuu ahaaye xafiiskaasna ma dhisno wuxuu xafiiskaas inuu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha wixii federaal ka socdo dowlad goboleed xubno ku yeeshaan aysan isu imaaninba khilaaf ayagoo ka tashanaya khilaaf u dhexeeya madaxweyneyaasha in isugu yimaadaanba ma aha jiritaan la-aanta waxaasa marka waxay keentay dowr siyaasadeed inay qaataan madaxdii dowlad goboleedyada waxaad ogtihiin dowladda goboleed doorkii ay qaateen waxaa ka mid ah doorkii golaha aqalka sare wuxuu u taagan yahay danaha dowlad goboleedyada shaqo kaloo qabtaba male marka laga reebo shuruucda oo golaha shacabka usoo gudbiyaan awoodda kale waa matalaada danaha dowlad goboleedyada oo ah state level uu joogaa wax ka bedel dastuur aragti siyaasadeed ee maamul goboleedkaas uu qabo inuu matalo waxaa iska leh senatarka madaxweynihii marka authoritigii ma siinin golihii aqalka sare lama siinin waana ima tashaa codkiigiina anaa ku hadlaayo golihii madaxweynihii federaalka anaa la fadhiisanayo siyaasaddii aan ka wada xaajoonaynaa macquul maaha marka waxyaabaha maqan waa awooddii ay lahaayeen golaha aqalka sare iyo sharcigaas baarlamaanka uu soo saari lahaa aada iyo aada mahadsantihiin su-aalahaas mar raba dunya inaan dib ugu celisho haddaad wax ku daraynin waa soo gonaanadeynaa laba su-aaloodoo haye su-aal waxa waaye ma hubtaa in mucaaradku la wacay iyo in kale su-aashaas weli lagama jawaabisay ila tahay gadaal fadhiyo cornerka waxa waaye waa ognahay waa taan kuu sheegay garowgal iyo tu iyo muqdishoba qayb baan ka ahayn korjoog baan ka ahayn waa kor ayaana kala soconay howlahaas waana dadki wax ka soo kariyaan ahayn marka waxaan ogeyn muqdisho iska daa macaarad loo wacee shanta maamul iyo madaxweynaha tanaasul badan uu sameeyey oo aada iyo aad ah inay ku hirgeshay arrintaas laakiin macaarad meesha marnaba position ugama banaaneen taa waa ku hubaa waana waxaan ognaa xaqiiq ah oo ayaga naftirkooda aada weydiin kartiin haddii aada jaanis u heshaan midda kale su-aasha kale waxay ahayd inkastoo cilmi uu wax badan ka tasaartay maadaama aada leedihiin dhalinyarada waa waxay maxaa dhalinyarada ogadaba hadlaysi waxaaba doctoorkaa micneeyey gabadha daarigta ii weydiisay waxay ahayd meeshan criteria jirta aniga haddaan maadada kasoo qaadba aan muxuu aan scientific kasoo qaadba inaan mathematician ahay haddaan PhD ka wato asaan isoo barin way of teaching ma bixin karo cashar sababtoo preparationkii ma samayn karo lesson learning ma aqaani skill ma aqaani marka ardayda marka horta waa gabi dhaclaynaya marka waxa waaye marka u horeyso waa in qofkan horta ma u tababaran yahay waxaan uu ka shaqeynayo waxaan ognahay guddi 6 sanadood kasoo shaqeynayo in la yidhi lama aaminayo oo laisku raaci waayo
marka maxaad ka malaynaysaa dhalinyaro yar yar ah oo cusuban dhalinyarada uma diidanin aqoonteeda hadday leeyihiin way imaan karaan laakiin meesha waxa laga hadlaya nin institution ku jiro institutionki dowladda ku jiro ama dhalinyaro ha noqdo ama waayeel ha noqdo xaq waxa waaye ma noqon karo nin dhexdhexaad ah waa in laga hadlaa waa in la caddeeyaa weliba annaga hadda hebel ma gaarin laakiin marka loo baahdo hebel aan leena gunaanadka waxaan rabaa hal su-aalna inaan weydiiyo gobollada qaarkood sanadkii hore 2016 waxaa wax doortay oo cod ku lahaa ergooyinka inay soo doortaan aqalka hoose 14,000 iyo 25 qofood sanadkan waxaa la filayaa 27,000 iyo adiga 8,000 qofood oo dhow dhowr gobol sida dad aqoon-yahano ay sheegeen waxaa ka bilaabatay dhaqan ah doorashada ayaan iska daweynaya يعني dadka wax dooranaya ergada waxaa lagu darayaa dadka xanuunsan oo xanuunkooda la daweey waayo laakiin lacag ay isku daweeyaan ka raadsan doona kuwa danaha haysta kuwa dhaawaca ah kuwa wax ka sii yihiin si ay marka waxaa la yidhaha hebel doorashadu iska daweynaya sidee suurtagal u tahay yani ilaa heerkaas day gaarto sidee macquul u tahay in dadkaasi ay doortaan ilaa xildhibaanka haddaa la yidhaahdo waa la iska daweynaya lacagta uu bixin doona la isku daweyn doonaa ama wax laga qabsan doonaa sidee macquul u tahay inay soo baxaan aqalka hoose aqalka sare waxaa dooran doona dowlad goboleedyada baarlamaankooda xildhibaano macquul ah sharaf leh karaamo leh waddan wax ka bedeli kara shuruucda taalla ee laalan wax ka qaban kara xeerka maanta aqalka hoose uu joogo wax ka bedelin kara waxaan rabaa inaan ku bilaabo daktarka oo ku jira aqalka hoose waa mahadsan tahay waa su-aal very interesting aad xiisa leh wey muxuu ahaaye waa la iska daweynaya waa ereygu cusub aniga kolley laakiin laga yaabaa de inay moogta wariyayaasha iyo social media og yihiin sideedaba doorashadii 16 baa la qaatay modelkan ah inay erga gaaraya ay wax soo doorato xilligaasi waxa loo qaatay waxay ahayd nidaamkeena doorashooyinka oo dhan baan dhisnay maxaa yeelay guddigii doorashooyinka markaasaa la sameeyey sharciga doorashooyinku ma dhisnayn muxuu ahaayey muusan dhisnayn sharcigii axsaabta xilli dambe weliba doorashadii dhexdeedii baa la ansixiyey isaga laftiisu ma dhisnayn xisbiyadu ma diiwaan gashanayn oo xisbiya diiwaan gashan ma jirin bena infrastructurekii doorasho lagu qaban lahaayoo dhan ee loo baahnaa ee asaasiyaadka u ahaayo maysan jirin marka saa darteed maxaan samaynaa waa inuu dhacaa transition waa inay doorasho dhacdaaba lagu adkaystay oo xukuumadda xilligaa joogtay ku adkaysatay iyo muxuu ahaye beesha caalamka iyo cid walba mar hadday tahay oo muxuu ahaye sunnaha ama dhaqanka soomaaliyeed ee siyaasadda ayaa wuxuu noqday in doorasho la gala 4 sanaba ama muddadii loo qarirayba doorasho mar la sameeyo waa sida keliya haatee ummaddu ay ku kala badbaadayso Soomaaliya de waxay isku dishay moogtahay inqilaab iyo wareer bay jaha wareer baa siyaasadeeda ay ka qaaday in qaab doorasho dimuqraadiya la isku doorto ayaa markaasi la qaatay marka maxaa la sidee loo dooran karaa wixii suuragalka ah bay waxa suuragalka waxa weeye in la yiraahdo tiro saambal ah oo laga soo doortay bulshadii ama deegaankii kursigan lahaa laga soo doortay inay noqdaan wakiilada marka iyagu uga wakiilka ah inay xildhibaankii doortaan Soomaaliya intee bay markaa ka wakiil noqon karaan oo ay dhab ka tahay inay wakiil dhaba yihiin bulshada inteedii kale waa su-aal meesha taalo wey oo waxaa lagala tashaday markaa salaadiintii waa inay soo xulaan bulshadii uu matalayay laga soo xulo wiilal iyo gabdho iyo dhalinyaro iyo waayeel iyo rag iyo dumar iskugu jira soonkan qaybihii bulshada iskugu jira oo soo doorta xildhibaankiisii kuwaas markaa inay noqdaan dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo inay noqdaan muxuu qof xanuunsan oo iska daweynaya iyo inay noqdaan qof caafimaad qabo oo moogtahay muxuu ahaa sidiisa inay noqdaan dabcan arrintaasi waxaan malaynayaa waa sheeko kale weeye laakiin muhiimku waxay tahay inay dad matali karo bulshadii xildhibaankaasi ka soo jeeday matali kara ay noqdaan oo ay doortaan qofka ugu munaasibsan ee booskaa u buuxin kara dabcan 51 lagu aaminay inay doortaan xildhibaan u qalma deegaanka iyo bulshada kursigaas iyaga u taala markaas inuu soo doorto inay arrintaasi si sax ah u dhacdo iyo in la musuqmaasuqo waa arrin kale iyada lafteeda oo loo baahan yahay
in muxuu ahaa wadajir loo ilaaliyo marka aniga waxay la tahay haddii hadda imika waa 101 laga soo xulay bulshada kursiga leh haddii ay muxuu ahaa si sax ah u fikiraan oo dowladnimada u heelinayaan oo qarankooda u damqanayaan oo qof u qalma oo matali kara ay ka tahay inay keenaan dee iyagaa talada iska haddii ay meel kale ka tuuraanna mas-uuliyaddooda iyagaa qaaday haddaan cid kale ku faragelin maxamed bismillah baasha haddaysan ahayn xayisiinta maalmahan aan ka dhegeysanay raadiyo kulmiyo liiska waa sii qoran yahay qalin qoryaa lagu qoray dadkii qofkii la baahan waa la tiraa haddaysan ahayn ma u malaynayo qof caafimaad aan qabin inuu erga noqon karo shuruudaa qoran qofka horta inuu muwaadin soomaaliyeed yahay muxuu ahaaye 18 sane uu ka wen yahay usan ka yarayn caafimaad qabo ergadii kursiga iska lahayd ciddii ama kursiga iska lahayd uu yahay oday dhaqankii iska lahaa ama bulshadii reerka maamulkeena uu ka tirsan yahay intaasaa lagu soo xulaa marka qof mentally aan fit ahayn ma u malaynayo inuu boos ugu bannaan yahay midda kalento kuraastu hadda waa qaali qof walba qof uu aada isaga hubiyey oo caafimaad qabo oo 100% codayna raadina mooye qof muxuu ahaye laba miiro ah oo ka qaldi kara xataa codka keena ma u malaynayo marka taas very joke waaye laakiin waxaan rajaynaynaa qaabka hadduu qorshuhu yahay looguna talagalay 101 inuu very strict ahaan doono waagii hore 2016 awoodda waxaa la siiyey odayga dhaqanka ah ee 135 ah ee ku jiro oo la tashana nabadoonnada laakiin hadda baawarkaas waa baahsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka wuxuu leeyahay awood wax kusoo xulo bulshada reerka qaybka oo ah dadka aqoon-yahanka ama dheergaradka iyo jifadaas kursiga iskale ah odayga dhaqankan wax buu leeyahay marka 101 lasoo xuli doono koota waaye marka 40% hadduu madaxweyne dowlad goboleedka soo xulaayo 31% oday dhaqankii soo xulaayo 30 kale bulshada reerka ay soo xulayso waxaan isleeyahay erga macquul ah oo dad fiican ah oo ay soo bixi doonaan xildhibaan fiican ay keeni doonaan xildhibaanka imaanayo oo dadka matalayahay waa codkii 10 milyan mase 10,000 qof yaa lagu qiyaasaa hadda halka xildhibaan inuu matalayo soomaaliya marka la dhaho marka 10,000 qof codkoodii cod sahlan ma ah marka ergada hala raadsada laga qayb galan dhiraa ragga dhalinyarada halkan joogo bismillahi raxmaan horta waaye aragnimada aan u leenahay haddaan bulshada rayidka nahay ninka ay ag fadhiyo gudoomiye inay helaan umaleyna zahro waxaan ogahay goob aan joogay oo korjoogto ka ahaa in iibaarkii laga soo celiyey oo la yiri loo biyo walaalkeed umada marka horta meesha waa la cidhiirsanaa maahine abbaay laguma tegaayo marka qoladii markaas haysato waxa ayaga inay wixii laga dhigo maahine inay soo dhigto lagama yaabo annaga laakiin waxaa jirta tala aan soo jeedinaanka bulshada reerkana annaga oo ka tusaale qaadanayna wixii aan ka baranay 2016 maadaama maba filaynin annaga in 2016 loo noqonayo marna maba soo dhiganinba laakiin hadda maadaama ay dhacday waxyaabo aan ka dignaa jirto oo aan gudbinay oo qoraallo ku gudbinay ilaa international community ilaa maamulada kulli iyo aan gudbinay waxa waaye criteria ergada sababta waxaan aragnay ergada badankeeda waxna ma qoraan waxna ma aqriyaan waxay ahayd annaga qorshihii markii hore aan dejinay in qof ka mid ah ergada uu qofku ku kalsoon yahay inuu u saxiixo ma dhicin guddiga ayagaa saxiixaya qofkan wax ma aqriyo waxna ma qoro ninkay rabaan ayay u saxaayeen qaladaadkaas in laga digtoonaado waa sheegnay oo qofaan waxna qori karin waxna aqrin karin aan ergada lagu soo darin waxyaabaha kaloo ku jira waxa waaye qof annaga waxaan soo jeedinay 5 qof inay beesha keensato oo la yaqaan loo qaateen magac kule dhalinyaro ha ahaado qof weyn ha ahaado la yaqaano oo deegaankana laga yaqaan inay keensadaan waxaa kaloo soo jeedinay odayga nabadoonka ha noqaado laakiin beelaha waxay leeyihiin sabkalaan odayaal caaqilay leeyihiin keligiis inaan lagu dhaafin oo beelaha qaarkood oo ilaa 8-9 gaaraya in caaqilada loo ogaadaan ergada
waxyaabaha aan soo jeedino oo looga haddii la yeelo ay suurtagal noqonaysa waay waxay midda kale annaga waxaa waa yeeran u nahay annaga waxayna waa recording hadda baarlamaanka walaalka cilmiga igala fadhiyo mid kasta waxaan ognahay ergadiisa intuu fadhiday ergada ugu yar waxay ahayd 51 41 qof waxaan ognahay niman baarlamaanka fadhiyo oo baarlamaan ah oo habeennimo sad dhexe 18 qof oo ciidamada inta dharka laga siiyey soo doortee marka annaga waxa waaye waxayna waa qoraal barbaaradeed ma sheega way dhaan reer alka jubbo marka waa taaganahay midda kale waxa aan ka digayna idinkana inaa u sheegtaan culamadana aan u sheegno beldowda markaan la kulanay in masaajidta khudbada jimcaha wixii ka dambeeya hadda ilaa doorashada laga gaaraayo loo sheego micnaha xaalaanta laaluushkan la qaadanayo iyo ninka bixinayo labadaba caqiibaxumada adduuniya aakhira u dambeynayso taas ayaan jecelnahay inaan inta ka dhiman doorashada sii wadno haddii awey intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa doodsan oo qaybtii labaad ahayd ku saabsan doorashooyinka waxaan rabaa inaan mahad celiyo xildhibaan cilmi maxamed nuur xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi oo labadii baarlamaan ee sagaalaad iyo sideeda ka tirsanaa iyo duniye maxamed cali duniye carshaan oo ka tirsan bulshada rayidka iyo howlwadeenka iida kasoo qaybgalayaasha dadka su-aalaha jeediyey iyo kuwa aan jeedinba waa mahadsantihiin haddii ilaahay idmo qayb kale oo ku saabsan doorashooyinka si gaar ahna u qusaysa ayaan qaban doonaa haddii alla idmo sidaas iyo nabadgelyo